ilaalinta xeebaha Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho cutubyo ka tirsan ciidanka badda ee xoogga dalka ayaa goobta waxa ay ku soo bandhigeen dhoorotus ciidan oo ku aadan munaasabadda maanta iyagoo adeegsanaya doomo waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka difaaca dalka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Admiral Faarax Umar Faarax Qare gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka badda Admiral Madi Sheekh Nuur Ufrow ayaa si wada jir ah ugu sheekeeyay marxaladii kala duwan ee soo mareen ciidanka badda muddadii ay jireen iyo sidii loo aasaasay 25 markabaan qabnay oo qaarkood sawaariikhda adduunyada ugu dambeeya ay wataan kuwa waxay wataan torbeedo madaafiic noocyo kasta 8 batalyan oo kumaandooska badan lahayd ka wareegaas 53 sano ciidanka badda wuxuu ahaa ciidamada ugu xoogga badan ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku jireen waxay difaaci jireen xeebta dhulkeedu yahay 3333 waxay lahaayeen barooyin waxay lahaayeen saldhigyo waxay lahaayeen dugsiyo tababar waxay lahaayeen qalab oo maraakib dagaal diyaarad marka insha Allah waxaas waxay naga raaceen burburkii waddanka ka dhacay dib mar dib loo aasaasay taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareegaas Cabdulle Jaamac Warsame Gorod ayaa habaliye kadib munaasabadda waxa uu ka sheegay in taliska ciidanka xoogga dalka ay ka go'an tahay tayeenta iyo dhismaha qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka badda uu ilaalinayo intay dhererkeedu yahay khayraadka ku jirana waa la sheegay hada suuragal maahan nin dawladnimo raba inuu difaacan waayo xeebihiisa iyo khayraadkiisa inuu difaacan waayo suuragal maaha hadda waa tabardari baa jirta odogtii laakiin waa laga baxaya wax lagu sii jirahayo maaha marka nin kastow iyo qof kastow nin markaan leeyahay gabar iyo wiil iyo dadka ujeedaayo yaan loo jeedaayo inaad kalsooni aan qabno in ciidanka badda uu soo dhismi doono mudane Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Mursal wasiirka difaaca ee dalka oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa hambalyo u diray dhammaan ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya waan idin hambaliyaynayaa idinka iyo qoysaskiina sanad guurada labaad waxaan rajaynayaa in midaan mid ka wanaagsan meeshan hadda aan ku kulannay meel ka qurux badan doomaha hadda aan u jeedo doomo ka qurux badan ragga hadda hortayda taagan oo ciidankoo darajooyin kala gedisan leh ayagoo noocan aan ahayn inaan sanadkan sanadkiisa ciddii ilaahay cimrigeeda gaarsiiyo aan ku ciidno 1965 ay ahayd markii la aasaasay ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha Soomaaliya maanta oo kale waxaana laga joogaa 53 sano Maxamed Xasan Cali idaacadii telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho